بسم الله أصحابتا أدبن سلامي دمانتين ميل بعدون ذيك تشوفتان وعشر كي سدحات مانتا إن شاء الله نحارب مركا إلى نضيف فايديو قضب مهم هانتو الله يدما هايو أصحابتا today حاربنا إن نتكهدلنا 3 rule مهم oo markaad rabtid suuqa inaad trade fiican aad ku samaysid ama real county aad ku trade galinayso inaad saacdo 3 rule oo muhiim okay marka 3 rule asxaabta waxa weeyaan aan idin kala tuso asxaabta number 1 waxa weeyaan loo yaqaano direction. Number 2 waxa weeyaan asxaabta strong level. Number 3 asxaabta waxa weeye confirmation. saddexda rule ayaan rabnaa marka asxaabta inaan maanta markaa si fiican uga hadalno hadduu alla idmo cashirkeenu saddexdaas ayuu quseeyaa direction, strong level iyo confirmation. waa 3 rule aad u muhiim u ah qofka raba in futureka ama bahalkan lacag uu ka sameeyo. saddexda rule intaad raacdo in badan aad practiceyso kadib waxyaalo badan oo profit ayaad ku samayn kartaa asxaabta. okay kow waxaan iri waxa weeyaan waa direction. marka asxaabta suuqa marka masalan lacagta bayriska aynu mid walba furno ayrijibo kala aynu furnay directionka suuqa marka saan horena xiisadii hore u sheegnay direction suuqa waa very vital inaad qiimeyso the first one. marka koowaad markaas lacagta saad aynu furnaa u furato the first one direction ayaa la qiimeeyaa suuqa halka jihadiisu ay tahay ama down trend ma up trend so markaan suuqa saas ayaan isaga fogeynaynaa asxaabta sidaas ayaan isaga fogeynaynaa so markaan suuqa isaga fogeyno direction ayaan soo baxaya jiha ayaa inoo soo baxaysa suuqu inuu jiha ku socdo ayaa inoo soo baxaysa. so jihada hadda markaan saa isaga fogeyno inoo soo bixi karta waxay noqonaysaa suuqii inuu yahay suuq uptrend oo kor jihadiisu tahay ay tahay. ma fahanteen? so already markaa directionka suuqa waynu garan karnaa suuqa halka marka uu badan yahay oo marka uu socdo. waxaynu iri suuqa markaan lacag saa u furno bayriska ADGB waxaynu fiirinaynaa first one direction suuqa jihadiisu waxay tahay waan iska fogeynaa shaashada sidaan u ogaano directionka dhabta ah suuqa kadib waxayna soo baxaya directionkii. hadda suuqan marka directionkiisu waxaynu leenahay marka waa uptrend. so marka directionka laba jira sidaan xiisadii hore u sheegnay directionka mid major ah iyo mid minor ah. major trend iyo minor labadaas direction baa jira. so masalan hadda suuqan labadiisa direction waxa weeyaan waa uptrend ayuu ku socdaa. major and minor waa uptrend. mid kale raadinaa directionkiisa suuqu minor majorkiisa ay kala duwan yihiin. okay sorry waxaan la furtay ADGB lacag kalaan soo furnaya Great British USD also waxa weeye waa uptrend uptrend. so halkan suuqa oo kana hadda suuqan directionkiisa wuxuu yahay waa uptrend laakiin waa majorkii waxaa leenahay waa uptrend suuqa. minorkiisana waxa weeyaan waa halkan wuxuu ka yahay downtrend. minorka halkan wuxuu ka yahay
downtrend soma halkan wuxuu ka yahay downtrend marka mar walbana asxaabta mid ogaada oo muhiim ah directionka midka lagu targeteeyo oo lagu shaqeeyo ugu muhiimsan waa midka minorka ah maybe mararka qaar major trendka oo lagu targeteeyo maadaama suuqu major trendkiisu aad naftirkiisu u xoog badan yahay laakiin mar walba minor trend ayaa muhiim ah in lagu targeteeyo suuqu marka xilliga uu yahay siduu ku socdo jihadu marka xilliga isaga uu ku socdo xaadirka ah ayaa marka minorka loo yaqaana lagu targeteeyaa asxaabta soo directionka sidaas ayaan u kala weynaynaa qodobka kale waxaa weeyaan strong level qodobka isagana waa qodobka labaad isagana oo muhiim ah so strong level asxaabta sideen ku ogaan karnaa strong level okay bayr baan raadinaynaa lacag euro iyo Canada 5 second ka bedel 1 minute bedel okay suuqa waxaan raadinaynaa suuqa strong level ayaan raadinaynaa asxaabta strong level ayaan raadinaynaa asxaabta so aynu dhigano strong level indicator kowan aynu dhigano strong level asxaabta okay asxaabta strong level ayaan dhiganaa hadda strong level marka levelka adag waxaa lagu gartaa asxaabta waa levelka waa meesha suuqa aadka marka reversalka uu ka yahay levelka reversalka badan aad ku aragtid suuqa oo laga celiyo halka waxaad u fahmaysaa ama u garan kartaa suuq levelka inuu noqonayo level strong so levelkan sa u jeedaan hadda aan dhiganay halkan level way soo jirta suuqii wuxuu ku socday bullish momentum future signalka waxaa aragtaa in reversal lagu sameeyo soma halkan waxaa u jeedaa flarta halkan waxaa u jeedaa suuqa inuu reversal ka sameeyo soma halkan reversal ayuu ka sameeyey suuqa habta halka reversal ayuu ka sameeyey soma also halkan wuxuu ka sameeyey reversal magarataan asxaabta halkaas marka suuqa meelaha laga celceliyo haddaad ku arto dhowr jeer 2 ama 3 ama 4 jeer oo suuqa level laga celceliyo haddaad aragto levelka waxaad u aqoonsanaysaa inuu yahay strong level saa u fahmaa asxaabta inuu yahay strong level so haddana u jeedaan asxaabta halka maxaa niri waa laga celiyey soma halka maxaa jeedaa suuqii waa laga celiyey halkan maxaa jeedaa suuqii reversal ayuu sameeyey halkan maxaa jeedaa suuqii in laga soo celiyey halkan maxaa jeedaa suuqii in laga celiyey so haddaa aragto 3 1 2 3 4 5
hadaa aragto markaa 5 ama 3 ama 4 wax ka badan hadaa aragto level suuqa laga celceliyey levelka asxaabta waxay u aqoonsanayna ama u fahmi kartaa inuu yahay strong level inuu yahay sidoo kale asxaabta suuqa marka weak levelka ayaa cagsigiisa yahay suuq hadduu level uu yahay level jilicsan ama weak ah kuma arki doono reversal badan oo sida sanad kale laga celiyo suuqa levelka kuma arki doono waxa marka levelka u naqana weak level inuu yahay levelka aan sidan reversalka badan aan lahayn daaratan oo sidan oo kale aan ahayn oo meel badan laga celcelin waa weak level laakiin daarto this level oo dhowr jeer laga celiyay suuqi laga celiyo daaratan حويان strong level سوف فهمه أصحابته سهل فهمه أوكي قولك سدحدا إنه قد قلنا قولك سدحدا أصحابته وحاول هو 5 second confirmation 5 second confirmation أردو أنا مركا يدوس حدي مركا مثلا بهذا هلكن 1 minute أنا كنت رجريا حدا 1 minute كنت رجرنيسو وحد confirmation كبي إنكرته this is 5 second confirmation أنا توصل 5 second confirmation ayaad ka dhigan kartaa haddii aan 1 minute aad ku taringaranayso daalkan ku yahay 1 minute xaabta daalkan 1 minute ku yahay maxaa ku tarin kartaa 5 second ayaa confirmation ku noqonaya confirmation ka dhigan kartaa haddii aad 2 minute aad ku taringaranaysid waxaad ka dhigan kartaa 10 second confirmation 10 second confirmation aad ka dhigan kartaa asxaabta ma fahmay haddaad 5 minute aad ku tirin garanayso soo kale 15 second ayaa waxay ku noqonaya confirmation ma fahanteen asxaabta so confirmation maxaan ku garan karnaa confirmationka muxuu yahay waa su-aal isweydiin badan soo haddaba aynu tuso okay aynu tuso asxaabta مثلا هذا أنا 1 minute أنا كنت ركريا صنعة 1 minute كوحن بدل يا أصحابته 5 second 5 second وكا سوجدا charties ينقضي 5 second so حرام كان دلالة إنها نكتسو كان دلالة confirmation كسوق حقيقين كوس ما ينكر إنها أتكون ترين كركتو يا إنكر مركو حاجرو كان دلالة عدينيا كان دلالة حاجرو كان دلالة عدينيا السوق أما أكسيني confirmation يا يحاجرو كان دلالة عن كسيني confirmation مركو كان دلالة confirmation كأي تسيا أو سوق إذن عدينيا السوق الجهيز يمشي سي أي دون عما أصعده أوكي أي تسو أصحابته confirmation كأي تسو this is candle سو جدا نقطة وكندل confirmation هذا كندل نوعه confirmation كندل هو كندل أن وينين أن ويرين medium كندل medium كأن long and short نهين حقيقة أنا كندل كاس confirmation كندل مركا this is okay يعني تصو كندل كان ثلاثة حقيقة أنا confirmation كندل confirmation also كندل كان confirmation also كندل كان confirmation yeah also كندل كان confirmation yeah also كندل كان confirmation so كندلada noocaas asxaabta hadaa aragtaan confirmation ayuu idin noqon karaa confirmation ayuu idin noqon karaa suuq xaqiijin ah in suuqi jihadaas ama jihadaas uu socdo down trend ama up trend okay si fiican aad idinku sii dhaweeyo shaashada idinka fog aan soo dhaweeyo asxaabta soo dhaweeyo haddana good waan tusaya mar kale kandalada kandal iska noqon kara confirmation inaan tuso si fiican idinku sii cadeeyo فلارت هالراعي أصحابته بيزيس أو جدان كندل كعسانك
noqonayaa confirmation candlada saxda ah confirmation ka ah way saan hore u sheegnay confirmation ka muxuu ahaa waa candle aadna u yareen aadna u weyneen aadna u dheereen candle medium ah candle medium ah also this candle confirmation yes after also this waa confirmation also this is waxa weeye waa confirmation so this candles guys hadaa aragtaan waxaa loo yaqaanaa waa confirmation candles confirmation weeyaan waxayna cadeynayaan ay ku tusinayaan ama ay ku xaqiijinayaan in suuqi directionkiisa halka uu suuqu directionkiisa u socdo ayay confirmationku ku cadeynayaan candlada noocan hadaa aragtid oo ku tiragelin kartaa next candle xiga hadaa aragto candle noocan ah hadaa aragto candle noocan ah next candle aad ku tiragelin kartaa hadduu suuqa laakiin yahay waa inaad gartaa laakiin suuqa meeshuu yahay suuqa directionkiisu down trend yahay aad ku aragto candle confirmation noocan ah waa ku tiragelin kartaa suuqa down trend hadaa aragto candle noocan ah also hadaa aragto candle noocan ah oo support level ah jooga confirmation ka aragtay waa ku tiragelin kartaa suuqaas uptrend inaad buy suuqa u raacdo soo candlada lagu tiragelay asxaabta oo candle confirmation ka loo yaqaano waa this candle 1 2 candle 3 candladaas 4 also this is now confirmation 5 ka dhig this candles oo dhan loo yaqaanaa waa candles confirmation also kana ku dar this waxa waa confirmation so lixdaas confirmation candle oo jidan waxay noo noqon karaan confirmation kaasna waxaa lagu garanayaa waa candle aadna u weyneyn aadna u yareen oo dhexdhexaad ah sidoo kale waa medium ah candladaas medium ka ee dhexdhexaadka aadna u weyneyn aadna u yareen waxaan u garanayaa inuu yahay confirmation so waxay intusi doonaa asxaabta candlada aan confirmation ka noqon karin candlada aan confirmation ka noqon karin asxaabta ayaan haddana idiin cadeynaya sidaan isku khaldin candlada aan confirmation ka noqon karin ayaan idiin cadeynaya waa kuna asxaabta candlada aan confirmation ka noqon karin this is candlekan aadka u dheer kan aadka u dheer ujeedaan candleka aadka u dheer ma noqon karo confirmation because of a long candle dheer confirmation ma noqon karo also this is candle yar asxaabta confirmation ma noqon karaan this week for week candles confirmation ma noqon karaan asxaabta this is confirmation ma noqon karaan ma ujeedaan asxaabta si fiican u eega this is confirmation ma noqon karo haddaa rabto candle dheer oo sidan oo kale ah haddaa rabto candle yar oo sidan oo kale ah waxaan u fahmaynaa ama candladaas ma noqon karaan wax confirmation ah candlada noocaas ah confirmation kuma siin karaan ma fahanteen asxaabta wax confirmation ah candlada iyaga ah kuma siin karaan candlada waa kuwa ayaynu niri this is candlekan saa dheer candle dheer haddaa aragto confirmation oo noqon maayo candle san u yar haddaa aragto confirmation nooma noqonayo ma fahanteen asxaabta so marka confirmation candlada noo noqon kara keliya waa candlada noocan ah sida hore aan ku sheegnay this is candlada medium ka ee dhexdhexaadka aan dheereen aadna u gaabneen this is also candle confirmation ayuu noqon karaa also confirmation so asxaabta confirmation also candladaas ay waxay noqon karaan candle confirmation ah haddaba marka asxaabta su-aal aad isku weydiiyaa jirta oo ardaydu in badan ay isweydiiyaan waxaa jirta marka
candlada waxaa arkaysaa confirmation badan, waxaa arkaysaa confirmation badan ayaad arkaysaa. مثلا tusaale ahaan this is halkan wuxuu leeyahay waa level suma, this is a level, halkan saxaad maxay tahay level suma. So waxaan arkaynaa confirmation badan confirmation badan ayaynu arki karnaa hal mar. This is oo kale hadda waa confirmation, this is a confirmation, this is a confirmation. So candladaas badan midna waa labana waa green confirmation, midna waa candle buy ah, oo midna waa labana waa sell confirmation, midna waa green oo buy confirmation candle ah. So marka kee ayaa confirmation u raaci karnaa, kee marka greenka ayaa confirmation noqon kara mise red candleska ayaa confirmation noqon kara. su-aashaas ayaa la isku weydiiya, sidee midkeen confirmation ka dhiganaa asxaabta. si easy ah aan idin fahansiiyo, haddaad aragto level, area of level candle, haddaad aragto level support ah ama haddaad aragto level resistant ah, candleska aad ku aragto midka supportka haddaad ku aragto candle buy ah iyo candle sell ah, kaliya candleka aad raacayso wuxuu noqonayaa candle buy ah, sababtoo ah waxa weeyaan waa support level. Okay, aynu tuso masalan halkan waxa weeyaan waa resistance level asxaabta, halkan waxa weeyaan waa resistance level suma, halkan asxaabta u jeedaan waa resistance level. So resistance level maxaynu ka aragnaa, soo dhaweeyo, resistance level maxaynu ka aragnaa candle badan oo confirmation ah, oo confirmation noo caddayn kara, sida kan iyo kan iyo kan. So midkaynu raacaynaa, waxaynu raacaynaa maadaama halkan ay tahay resistance level, candleka selliska ayaan raacaynaa, candleka selliska ayaan confirmation inoo noqonaya oo aynu raacaynaa. ma raacayno midkan greenka ah oo buyga confirmationka ah, sababtoo ah halkan waa resistant level. maxaa lagu arkaa oo kasoo gala sellis suma, sellis ayaa kasoo gala. So ma raacayno markaan confirmationkan ee ah confirmationkan ah greenkan ma raacayno asxaabta, ma raacayno midkan falaarta ay suran tahay, ma raacayno ya, maadaama halkan resistant ay tahay waxaynu raacaynaa candladan greenka ah ee aan dhahay candlada sellka ah ee redka ayaan raacaynaa, kuwaas ayay confirmation noqonaya. This is candlekan buyga nooma noqonayo confirmation because of this is waa resistant level, halkan waa resistant level. kaliya waxaan confirmation noqon karaa marka candladaas sellka ah. saas u fahma asxaabta. su-aashaas waa very vital, su-aal aad dad isku weydiiyaan si loo fahmo asxaabta. haddaad aragto candle confirmation ah oo badan oo sell iyo buy ah sidan hadda u jeedno, kaliya waxaad ku kala duwi kartaa, ku kala raaci kartaa ada levelka muxuu noo yahay. maadaama levelka hadda uu noo yahay resistant, halkan ayaynu 3 confirmation, midna buy yahay midna labana ay sell tahay, waxaynu raacaynaa labada sellka ah, sababtoo ah because of resistant level. hadduu support halkan oo kale support level, masalan waa support level halkan soma, waa support level, waxaynu aragnay confirmationkan also this confirmation noqon kara inkastoo yara dheeri xogo, laakiin confirmation wuu noqdaa aadna uma dheera. also this is confirmation, halkan waxa weeye waa support. ayaynu raacaynaa marka, waxaynu raacaynaa this is green candlekan buyga ayaynu raacaynaa, candleka buyga ayaynu raacaynaa, candlekan ma raacayno
sababtoo ah waa support level halkan. So levelska ayaad ku kala duwaysaa candlelada confirmation badan haddaad aragto levelska ayaa ku kala duwaysaa. Hadduu resistance yahay candlelada sellska ayaa raacaysaa confirmationka ah. Hadduu support yahay waxaa raacaysaa candlelada buyga oo confirmationka ay ku siiyaan suuqa. saas u fahmaa asxaabta. waa muhiim su-aashaas arday badan baa isweydiisa. aanu iska tirno okay asxaabta, aynu tus marka anagoo hamar ku taageerayno 5 second confirmation asxaabta. 5 second confirmation another trade of 5 second confirmation ayaan sameynayna asxaabta. suuqa halka saa ujeedaan waa uptrend sooma asxaabta. suuqa saa ujeedaan halkan muxuu yahay uptrend, waa uptrend sooma. so this is halkan waa level, this is a level, this halkan waa bias area, this is a bias area, this is a bias area asxaabta saa ujeedaan. okay confirmation ayaan fiirsanayna suuqan. confirmation ayaynu fiirinaynaa asxaabta. confirmation ayaynu fiirinaynaa yaa confirmation ayaan raadsanaynaa. okay suuqii sell ayaan usoo galnay asxaabta. suuqii sell ayaan usoo galnay saa ujeedaan. saa ujeedaan suuqa asxaabta maxaan usoo galnay sell. maxaa ujeedaan asxaabta suuqii sell ayaan usoo galnay. okay waan ku guulaysan asxaabta. sababtan u guulaysan waxaa weeyaan this is halkan waxaa noo noqon waa confirmation. halkan maxay noo ah confirmation, this is a confirmation. ayaan tuso candlekan waxaa noo noqday confirmation, this is candle confirmation, also this is a confirmation, this is a confirmation. so suuqa waxaan usoo raacnay sell, sell ayaan usoo raacnay suuqa asxaabta. aad baan idin salaamayaa asxaabta. halkaas ayaan ku ekeenaynaa suuqa cashirkii maanta. aad baan insha allahu idin salaamayaa. ku celceliya guys, waa muhiim asxaabta. cashirkan waa muhiim, ha lagu celceliyo insha allahu. aad baan idin salaamayaa dhamaantiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.